بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعيقة حمزة عمر أبو waxaan dhigtaa iskoolka saacada gaar ahaan fasalka form 4. Maanta ciwaankeena waxaan rabaa inaan uga hadlo noocyada cuntooyinka ama nafaqooyinka. Si guud ahaan cuntooyinka ama nafaqooyinka waxaa jira ilaa iyo 5 nooc oo jirka bini'aadamka aad ugu baahan yihiin, waxayna kala yihiin carbohydrate, proteins, dufin, vitamins iyo minerals ama macdin. Qaybta koowaad carbohydrate. Carbohydrate waa cuntooyinka aan ka helno tamar ama awooddaas oo aan wax badan ku qabsan karno sida nolol maalmeedkeena iyo wixii la mid ah. Cuntooyinka carbohydrate-ka waxaa ka mid ah sida bariiska, baastada, qamadiga, masagada iyo wixii la mid ah. Qaybta labaad proteins. Proteins waa cuntooyinka jirka dhisa, koritaanka ay qaabilsan yihiin, sidoo kale dayactirka unugyada idlaaday ay dib u soo nooleeyaan. Cuntooyinka proteins waxaa ka mid ah sida malayga, hilibka, caanaha iyo ukunta iyo wixii la mid ah. Qaybta saddexaad dufin. Dufinta waxaan ka helnaa tamar iyo kul. Tamarta aan dufinta ka helno wuu ka xaddi badan yahay tamarta aan ka helno carbohydrate-ka. Tusaale, qofka hadduu isticmaalo shay carbohydrate oo keliya, tamarta inta ay jirkiisa ku jirayso waa in yar, laakiin hadduu la isticmaalo shay oo dufin ah, tamarta xaddi aad u badan ayuu haynaa jirkiisa. Cuntooyinka dufinta waxaa ka mid ah sida looska, saliidda, subagga iyo baruurta iyo wixii la mid ah. Qaybta afraad vitamins. Vitamins jirkeena xaddi aad u yar ayuu u baahan yahay, halka bariiska iyo baastada aan xaddi aad u badan aan ka isticmaalno. Vitaminska ama khudaarta uma baahno in xaddi aad u badan aan isticmaalno. Qofka hadduu isticmaalno xaddi aad u badan dhibaato uma keenayso. Cuntooyinka baruurta vitaminska waxaa ka mid ah vitamin A, vitamin B1, vitamin C iyo vitamin D iyo wixii la mid ah. Qaybta ugu dambeeya ee qaybta shanaad minerals ama macdin. Mineralska jirkeena xaddi aad u yar ayuu u baahan yahay, waxaana ka mid ah calcium, potassium, iron iyo chlorine iyo wixii la mid ah. Barnaamijkeena intaan ayuu ku ogyahay. Sidii aad nala socoto barnaamijyada kale ee iskuulka ay soo deyso nagu soo biir. Mahadsanidin.